ardaydii baratay xirfadda taliinka ee Hano Academy iyo macallimiintii ayaa door weyn ka ciyaaraya la dagaalanka caabuqa coronavirus iyaga oo sameynaya maskarooyin ama wax afka qalaad loo yaqaano face mask wana sameynayaan hab sahlan oo waxtar leh. marka hore waxay gacmahooda ku nadiifinayaan jeermis dilid, dabadeed waxay xiranayaan gloveska iyo face mask. waxay isku diyaarinayaan habkii ay ugu howlgali lahaayeen inay sameeyaan face masks. waxay ka bilaabayaan jarjaridda maro dhererkeedu yahay 15 inji balaceeduna yahay 8 inji. waxay u kala laabayaan kala badh waxayna cabirayaan 3 inji dhinac kastaba. waxayna calaamadeynayaan inay meel banaan tahay inta u dhaxayso maskarada una geliyaan shaandad ama waxa afka qalaad loo yaqaano filter. waxayna ku darayaan 7 inji oo laastiig ah. waxayna ku dhejinayaan inta u dhaxaysa lakabyada dharka. kadibna waxay tolayaan labada gees ee marada si lakabyada dhinacooda ay ugu xiraan laastiiga. waxayna u rogaan marada gudaha. waxayna ku darayaan lakabyo iyagoo ku dhejinaya biinan dhinac kasta ee maskarada ah ama meel walba oo maskarada ama face mask ka mid ah. lakabyada ayaa muhiim ah. waxayna ka caawinayaan face maskiga in uu daboolo sanka ilaa iyo gadhka. kadib markii ay isku dhejiyaan dhinacyada oo dhan waxay tolayaan dhammaan dhinacyada oo dhan haddii loo baahdo. maskarada ama face maskiga ayaa hadda diyaar u ah in la isticmaalo. tani waa qaab cusub oo aan u sameyn karno maskarada gudaha, laakiin waxay sidoo kale u suurtagelaysaa Soomaalida ka soo jeeda qeybaha kala duwan ee nolosha si ay iskaga ilaaliyaan caabuqa coronavirus. maskarooyinkan ama face maskska waa kuwo tayo sare leh oo ay soo jeedisay in la xirto hay'adda WHO. xasuusnow, badbaadadu waxay ka bilaabataa naftaada